kulan wacan u wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka u dhaxeeya Pakistan iyo Hindiya xiisada ka soo korodhay Kashmir weerarada droonka ah weerarada diyaaradaha droonta ah iyo gantaalada jawaabta ay ka bixisay Pakistan weeraradaasi khasaaraha iyo saameynta ka dhalatay dagaalka oo maanta la isku farasaaray cabsida laga qabo dagaal weyn oo dhexmara labadaasi dal khabiiro iyo beesha caalamka ayaa ka digaya dagaalkaasi qodobadan iyo qodobo kale oo ka waaweyn ayaynu ku faahfaahin doonaa barnaamijka Cabdixamiid Khadka ayaa nahay saaxiibaya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay haddaad nala sii joogtay fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe noo saar channelka la soo follow gare sii share gare muuqaalkan oo la wadaag saaxiibadaada mahadsani wararka maanta ee 8 bisha May 2025 waxa ay muujinayaan kororka xiisada military ee u dhaxaysa Pakistan iyo Hindiya iyadoo oo labada dal ay isweydaarsanayaan weeraro drone iyo gantaalo ah taasi oo keentay dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan xiisada ka soo cusboonaatay Kashmir xiisadan ayaa ka bilaabantay weerar dhacay 22 Abriil ee gobolka Kashmir kaasi oo lagu dilay 26 qof oo Hindiyan ah Hindiya waxa ay ku eedeysay Pakistan in ay ka dambeysay weeraradaasi inkastoo oo Pakistan ay diiday eedeymahaasi weerarada diyaaradaha droonka ah iyo gantaalada Hindiya ayaa sheegtay in ay fulisay weeraro lagu magacaabay Operation Sandor oo lagu bartilmaameedsaday xarumo ay sheegtay in ay yihiin kuwa argagixiso ee ku yaala Pakistan iyo Kashmir ee ay maamusho Pakistan weeraradan ayaana la sheegay in ay ku lug leeyihiin diyaaradaha Rafale iyo gantaalada casriga ah Pakistan ayaa sheegtay dhankeeda in ay soo riday 25 diyaaradood oo drone ah oo ay Hindiya soo dirtay kuwaasi oo ay ku jiraan noocyada Israa'iil ay farsamayso mid ka mid ah droonyadaasi ayaa la sheegay in uu ku dhacay xarun military oo ku taala Lahore halkaasi oo dhaawac uu ka soo gaaray 4 askari jawaabta ay ka bixisay Pakistan ayaa sidoo kale sheegtay in ay qaaday weeraro gantaalo iyo drone ah oo lagu beegsanayo magaalooyin Hindiya ku yaala sida Amritsar iyo Jaisalmer Hindiya ayaa sheegtay in ay ka hortagtay weeraradaasi iyadoo oo adeegsanaysa nidaamka difaaca hawada S-400 kaasi oo markii ugu horeysay si rasmi ah loo adeegsaday khasaaraha iyo saameynta ka dhashay dagaalkaasi u dhaxeeya Hindiya iyo Pakistan ee saacadihii la soo dhaafay la isku farasaaray weerarka ayaa sheegaya in ugu yaraan 48 qof ay ku dhinteen tan iyo markii ay bilaabantay isweydaarsiga weerarada iyadoo oo 32 ka mid ah ay ku dhinteen Pakistan labada dal ayaa midba midka kale ku eedeynaya weeraradaasi iyadoo oo dad rayid ah ay yihiin kuwa ugu badan ee waxyeeladu ay ka soo gaadhay khuburada caalamka ayaa cabsi weyn ka qaba dagaal weyn oo ka dhex qarxa labadaasi dal khabiirada beesha caalamka ayaa ka digaya in xiisadani ay isku bedesho dagaal buuxa oo u dhaxeeya labada dal ee leh hubka nukliyeerka waxaana la sheegayaa in haddii aan Hindiya la xakamaynin dagaal noocaasi ah uu keeni karo khasaare baaxad leh oo bini'aadantinimo ugu dambeyn xiisada u dhaxaysa Pakistan iyo Hindiya ayaa mar kale cirka isku shareertay iyadoo oo weerarada isdaba joogga ah ay keenayaan khasaare naf iyo maalba leh beesha caalamka ayaa ku baaqaysa in labada dal ay muujiyaan xakamayn si looga hortago dagaal weyn oo saameyn ku yeesha gobolka iyo dunida inteeda kale aad iyo aad ayaad mahadsantahay haddii aad halkan nala soo gaadhay warkan waxaanu ka soo xiganay warbaahinada waaweyn ee caalamka sida AB News, Reuters, Al Jazeera iyo The Guardian Cabdixamiid Khadka ayaa nahay saaxiibayaal wararka xigay intaaynu ku kulmi doono waxaan idin leeyahay khadka ku jira sii share gareeya muuqaaladiin oo la wadaaga saaxiibadiina mahadsanid